السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا أدقون وحنا ذي الله هاي سلام قبد آدم ندين سلامية وأضاقي حسنها وحنا ذي الله هاي إذا كم عزبي بانو ملاينا إنك صو مقالك إذن أركينين وحن أوسي ديار جروبيا أن هذا أوسي درب قريننا أما أنو سفر أوسي جرنا قابن دين عائلة بورك مقالة كالجري أن دونا ينان دوان كام بحو هذا الله يدمو وحنا ذين رجينا يا إناد دعاء حقنا أي تاي أو ماركت يسوع دعين دونتان إنه إلهي تاك دبلا إيجا صادقة سفرك وأنا وضع صعود دونا هذا إلهي را وتقول روح إنك صو أنا برنامج دوبني هذا قيمة بدن أو أنا ماركت لو ذاقنا أصحابته إيو مقرانيسا دتك كحرا يوتيوب كاجا وأنا أدو سلام أيو ودنبين برنامج كان قيبته ودن بيس كليب كان هذا أنو كدوبه إنه أنت أنو سيسو عنا فلوج غيره سمينا إنه محد حسوسنتها ويدين هذا أمامك هكذا حقوحي والله حسنا برضه ما حسيت أبو سؤال ويدي سيئات بنك هجم هالعيلنا لكن ولا لو معنا واحد شرط برضه على السيد ده عن كهلي وشرتي وعادي عادي كشكاس إسلامتي إحد محيد مقعد دقدي دقدة مقعد وحلا يراها وحلا أورنجري قرب عليه تاريخ الصومالي ذي لو يكون الله والله قرب عليه برضه ويقول قصة شيء سكون وقرب عليه وربطت كنا إلى الشهر قريان بالقرب عليه waxaan rabaa dadka si ila sheer gareeyaan asxaabteyda ugu xiran inaad balooga sheekaysaayga waayahay qurb calay taariikhdeeda muddo ahaan iyo maalin ahaan sanad ahaan halka ay ahayd xasuusteeda meel ay si dhab ugu qoran tahay ma xasuusto waase Soomaalida taariikhdeeda sheek xariirada qayb kamid ah oo ku jirta sidoo kalena hadii ay jiraan qoraayo dhageysan doona barnaamijka yaga ama sidoo kale dad soo akhriyay buugaag taariikhda qurb calay ee ku qoran tahay hadda haysa waan inoo sheegi kartaan muddada sanadkii iyo bishii iyo maalmihii iyo xilliyadii ay nooleed intaba laakiin sheek xariirada Soomaalida aad bay ugu weyn tahay sheekada qurb calay waxay ahayd sida la sheego hooyo Soomaaliyeed oo aad u xifrad badan oo waqtigeeda iyo maalinteeda iyo muddadeeda la shaqeysanaysay wadciga jiray waqtigaas tusaale qoysaska Soomaaliyeed ee maaragtay burburkooda waxa lagu xaman jiray inay qayb kamid ka ahayd ama ay ka geysan jirtay gacan Araweelo waxay target ku ahayd inay fikirka dumarka ay xoojiso sidoo kalena ay lid ku ahaato had iyo jeer aaraada iyo ficilada ragga marka Araweelo way ka duwaneed islaantan businesskeeda wuxuu galay inay qoysaska iska hor keento ninka iyo naagtiisa isku dirto dabadeed haddana iyadii xariga furfurtay oo reerka dabka dhex dhigtay ayaa haddana iyadii xalinayso sheeko marka yar oo isla way sheekooyinkeedu way badan yihiin mid kamid aan ku xasuusinaya aan doonayaa sidoo kale inaan sidaad iiga codsatayba aan ula wadaagno dhammaan daawadayaasha iyo groupka iyo asxaabta ku xiran page-kaaga sheekadaas waxay ahayd tusaale waxay samaynaysaa duqda eedadeena oo la oran jiray maxaa la oran jiray qurb calay waxay samayn jirtay tusaale reer isku fiican bay arkaysaa reerkay waxay leedahay reerkan waa inaan maaragtay aan ka dhex sameeyo qurbacayga waa inaan ka helo dadku dee xoolo dhaqatii ahaayeenoo geela ugu qiimo badnaa maaskii la isticmaalayeen marka ninka reerka oo aabbaha ka ahay u imaanaysaa waxay leedahay maandhow waxaan ku yidhi adoon dhibaato kuu geysan adna aad dhaqan tahay hadda qurbacaygii ma ii diyaarinaysaa markaasuu xoogaa isira giijinoo wuu ka yara diiday hawshaas maaragtay inuu fuliyo dabadeed waxaa dhici jirtay inay go'aan qaadato si ay maaragtay ay qurbaceedii u xalaashato ay u samayso waxay samaynaysaa markuu ka diido inuu qurbici bixiyo waxay samaynaysaa qorshe cajiib ah waana qorshaha qof badan oo Soomaali ah u ah halhayska dhibaatada ugu badan ay salka ku hayso gabadha u imaanaysaa waxay leedahay ninkaagu habeenkii dee ma garanaysaa habeenka uu maaragtay uu caruurta raadinayo habeenka caruur doonka imise goor baad nolosha wadaagtaan ama aad gogasha maaragtay hurdada u ka kiciya hadalkaygu inuu sarbeebo oday baan hadalkan sarbeebaya ma doonayo inaan si qayaxan inta ka badan u dul fuulo marka gabadhu waxay leedahay dee naga dama sheegi karnaa waxay waa iska normal oo xaaladdu waa iska okay waxba badan ma jiraan waxay leedahay ninku kuma rabo kuma jecla ninku u baahanna ma ahan hadduusan habeenkii 15 hadduusan samaynaynin hawsha hadda waxaas anigu ma arag naa rag oo dhan uu sameeyaa ninkaaga kuma rabeen naa kale uu qabaa isagoo daalan buu ku yimaadaa waxbay ku afuufaysaa gabadhii oo geesa leh ayuu caawa ninka u imaanayaa si ay wax ugu sheegto ama ninka u weydiisana ma taqaano hawshii ninka markuu dhaho aad hawl gashiyo sidiisu aad seexati u dhaho dhammayso shaqadiisa ayaa waxay leedahay waryaa waa la ii sheegay inaad naaga kala qabto adoo daalan baad soo aadaysaa stupid ora masayr baa halkaa ka bilaabanaya
gabadhi markay kacdo oo buuqii iyo masayrku uu kaco ninkii oo walwalsan oo dhulka xariiqay maalin iyo 2 maalmood kadib soo raadinaysa duqdi meeshaan ahayd ninkii bay imaanaysaa waxay leedahay waryaa horay qurbici waadiga u diiday inaad siisay hadda ma ogashaa qurbici inaad siiso reerkan kula xalliye markaasuu leeyahay eedo qurbacaad haddu diyaar yahay weliba mid baan kugu dariyey gabadha iga qabo gabadhii bay galabkii inta duhurkii u yara seexata iyadoo xoogaa yara qabow ayay galabkii u imaanaysaa waxay leedahay naanakeen xoogaa soo warwareegnay meelaha waa ogaa inaad habeenadan seexanay eedo ninkii waa saas sheegaysay ninkii maaragtay naa kaluu qabaa waa saas sheegtay waxbay gabadhi daldalaysaa naanakeen horta xoogaa kuu soo sheekeeyey bannaankaa kore oo reeraha ka baxsan ayay inta soo warwareejiso biyo iyo shaahna ku sii gurto markay gabadhu guriga ka raacayso ayay hadhow gabadhu kaadi qabanaysaa markaasay leedahay eedda ii kaadi aan kaadshay wax yar markaasay leedahay ee kaadi kaa fogaan maayo bahallay carradu leedahay habeenadan waa laga dayriyey dhulkaani waayahay gabadha markay hawsheeda kaadidaa dhammaysatay leedahay naa ku noqo mar labaad kaadi ma qof hadda kaadi ka dhammaadaan mar labaad kaadin kara laa xawla walaa quwata markay gabadhu tiraa eedda maxaa kaa qaldan ma suurtoobayso mana yeeli karo sidee mar labaad kaadi ugu noqdaa ee waxay leedahay naa ninku muxuu kaaga bedelan yahay adigu waa adoo kale adiguba hadda ta kaadisay ayaad leedahay kaadidu kuma noqon karo soo maha sidee ay u suurtoobaysaa in isagana sidoo kale aad weydiiso mar labaad inuu kaadida ku laabto naa ka leexa ninka gabadhiyo madaxa gundhinaysoo leh nacam allaylehay wixii qaldanaa haddaan gartay duqdiina xoogaa hoos ka yara haruufaysoo leh shaydaanta marka horena kugu dirtay haddana kaa dhicisay ayay reerkeeda iskaga soo noqonaysaa habeenkaasba odageeday la heshiinaysaa subaxii qurbaceedu waa diyaar iyadu qurbaceedaasay ka shaqaysaa inay qurbaceeda heshaan muhiim u ah aad bay u mahadsan yihiin dhammaan daawadayaashii asxaabta ku xiran halkan waxaan idin leenahay habeenka maalinta barqada casarka iyo galabtuba ha idiin wacnaato mar kastoo aad joogtaan iyo meel kastood ku sugantihiinna waan idin jecelnahay safar salaama ayaad dabcan oran doontaan anna waxaan idin leeyahay sidoo kale safar salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu